waxaanu ku nimi wafdi ballaaran caasimadda gobolka Salal magaalada Saylac iyadoo ujeedka safarkaygu ahaa in aanu marka ugu horeysa soo booqano masaajidkii Qiblatayn oo ah masaajidadii ugu horeeyay taariikhda muslimiinta oo laga amaamuday ama laga bineeyay geeska Afrika ama Afrika oo dhan taariikhda muslimiinta kaas oo ahaa masaajidada labada qiblo dhismahoodu ku dhacay oo markii horena Baytul Maqdis loo jeesan jiray salaadaha shanta ah markii dambe ee qiblada la wareejiyayna loo jeestay xagga Makka iyo Kacbada masaajidkaas oo masaajid taariikhi ah oo ku yaala magaalada Saylac isla markaana waxa weeyaan muddo dheer dhisnaa oo dumay taasoo aanu maaragtay ka xukuumad ahaan aanu doonayna insha Allah tacaala in dib loo soo nooleeyo taariikhdii masaajidada athariga ah ee uu ugu horeeyo ama uu hogaaminayo Masjidul Qiblatayn masaajidkan waxa weeyaan waa masaajid runtii la oran karo fi fajr al-islam islaamka bilowgiisii intii aan Madiina la dhisin maaragtay laga taagay halkan waxana runtii taariikh dheer buu leeyahay isaga iyo magaalada uu ku yaalo oo ah magaalo ay soo mareen saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam ee u soo hijrooday ardul xabasha wakadalika taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii iyo culimadii kale ee fuqahada ahayd muslimiinta dadkii culimadii mu'alafaadka lahayd oo halkan ay u ahayd hoy ay ka faafiyaan diinta islaamka ama ay waxa weeyaan geeska Afrika ay ka galaan si ay diinta dadka u gaarsiiyaan waana dhulkii awooyaasha oo islaamku ka faafay marka fadhigaygan maanta aan halkan nimi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anagoo ka kooban laba qolo oo maaragtay qolo xukuumadda ka socota iyo qolo masaajidka dhismihiisa uga soo kicitintay cariga Ingiriiska oo uu hogaaminayo al-akh al-Kariim Axmed Cabdullaahi Xasan oo runtii barnaamijkaas ula yimi in uu wax ka xukuumadduna ay arrintaas soo dhaweysay marka insha Allah tacaala dhawaan waxaanu isku daynaa in aanu markaskii Qiblatayn aanu dib u soo celino oo si taariikhi aanu u dhisno inuu soo ceshan doono makaanadii diiniga ahayd iyo hogaaminteedii uu lahaa hore arrinkaana waxaa nagu soo tabantaabiyey madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xafidahullah oo runtii hawshaa aad iyo aad noogu gubaabiyey isla markaana na soo tabantaabiyey ما وحلا هلاي نشخصي مدام المال تاريخي ولا مساجد نشخصي أوريجينال كذا هلاي والله يا مساجد تاريخ ديسي هي نشخديهيسي هي أنت وكقابنا مركزي هراء لما والله هيا وحكى الله هيا تاريخ دي كحرنيد إسلامي جاهد كجرتي مقالة زيلة يهريريد أردن لما أنت والله هيا دي بارا الله أورنا إن شاء الله تعالى وانا لا أركض دونا إن شاء الله تعالى ومدنا وأوصل بنجينا. حكوا راعي مسجد وحكوا راعي دونا بإذن الله تعالى مركز وين ودينية وإلى هير جام عديدة أنا مارتي لو تلقى علي عندما ندول كيسي أردنا دب لوجو سعليو. وحاي هكذا هانجتي قب علوم الإسلام lagu faafiyo oo ilaa Afrika dhan ay gaarto halkan waxa ka soo baxay culimo aad waaweyn oo ka qayb ka ahaa kutubada ugu waaweyn oo maanta islaamka laga barto halkan ay ka soo baxeen magacayga waxa leeyahay Axmed Cabdullaahi
waxaan ahay trustee waxaan ka ahay hay'ad samafala oo ku beesgaraysan ingiriiska oo isu xil saartay in masaajidkan iyo magaaladan saylac oo ah magaalo aad qadiim ah ilaa waqtiga roomaanka Giriiga iyo ka sii horeysay magaalo aad qadiim u ah in dib loo soo nooleeyo aimka aan kale nahay oo meeshan laga leeyahay waxa weeyaan in la siiyo masjidkan meesha muqaddaska uu kaga yaala caalamka islaamka inuu sidan ahaado oo u dansanaado u burbursanaado waa wax runtii laga naxo laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay in loo soo jeestay oo aan rabno meeshan in laga sameeyo masjid aad u weyn oo markaas ah oo culumta islaamka lagu bariyo qaybna culumta islaamka lagu barto qaybna lagu cibaadeysto qaybna ay noqoto madxaf lagu keediyo waxyaalihii taariikhiga ah aathartii ku lahaa masaajidkan u noqdo masaajidkan waxaan rajaynayaa markaskan iyo centerkan la sameyn doono ku bixi doonto malaayiin dollar ku bixi doonto waa wax loogu talagalay waqaf oo loogu talagalay inay noqoto sidaan rajaynayno UNESCO World Heritage inay noqoto meel aan rajaynayna caalamka islaamka dhan ay u yimaadaan si ay u arkaan taariikhda islaamka oo aan ognahay hijriyadii koowaad iyo kii labaad qaybta ka qaadatay muxuu ahaa taariikhda islaamka meesha noogu taalo waan ognahay in saxaabada waaweyn oo Cusmaan bin Affan ugu horeeyay soo mareen halkan waa wax runtii loo baahan yahay in la soo nooleeyo lagana faa'iideysto marka waxaan rajaynayaa inuu masaajidkan u noqdo furaha soo nooleyn lahaa magaalada Saylac haddii masaajidkan la furo oo markas weyn noqdo oo culumtiisa soo noqoto oo uu soo noqdo madxafka soo noqdo oo meesha la nooleeyo waxaa imaanaysa magaalada waxaa soo noqonaysa inay soo noolaato waanu mahadnaqaynaa waana soo dhaweynaynaa waxa ay tilmaamaysaa masjidkan maanta ee laynoo dhisayo inay Saylac dib u soo noolaanayso oo aynu mar labaad ku soo biiri doono dunida xukuumadda iyo tiimkan Axmed hogaaminaya iyo jeermaankana waxaan leenahay aad iyo aad baad soo dhaweynaynaa waanad mahadsantihiin aad iyo aad baad soo dhaweynaynaa waanan idinla shaqaynaynaa reer Saylacna waxaan leeyahay way idinka arkaya Saylac dib bay u soo noolaatay Saylac daaraheedii markale dabaqya aan saaro degmadeena waa inaan dhisnoon haybsanaa dubay baan leenahay waa idinla shaqaynaynaa waa idin soo dhaweynaynaa ilaa khayraasiyo waxa weeyaan waxa la yiraahdaa Y&I consultancy oo Axmed ka mid yahay shirkadaasi oo Ingiriiska degan isla markaasina jinaaxiga khayriga ah leh ayaa runtii fikriga uu ka yimi ilaa khayr ka siiyo oo runtii doonaya inay iyagu waqtiga hadii la yiraahdo ay dhisaan waxay gacantana ku hayaan weeyaan hadii la qadaro waxa loo raadinayo reer Saylac maanta waxa weeyaan maanta waxaan joognaa waa halkan waxay u baahan tahay masaajidka Madiina markii la asaasay rasuulka inta uu ka yaraa waa ogsoontiin balka adimayay maanta intuu leeyahay islaamku weynaaday waxa nasiiba maanta uu banaay dhulku banaayahay dadka hareeraha degan iyo meesha ku dhow wax loo baahan yahay in la noqdo masaajidka Madiina mid u dhigma oo caalamka isugu yimaadaan oo jinaaxi waxbarashada iyo jaamacadaha aqoonta islaamka lagu baranayay jinaaxi taariikhda iyo wax aasaarta ay lahayn la dhigayay jinaaxi si mataqaan ay isu maamusho meeshu ay wax soo saaraan loo sameeyay wax loo baahan yahay markaas in dhulka mas'uuliyadda naga saaran dadka deegaanka degani dhulku waa banaay wali banaayahay in loo baneeyo inta loogu tala galay si markaas ay magaalada u noqoto magaalo taariikhda islaamka dib loogu soo nooleeyo waxa inta idin dheer oo agtiinana ah jasiirada ugu quruxda badan ugu qaalsanay marka waxaan u baahanahay wada jir ahaan inta badan waxay moodaa marka meel la dhisayo la sameeyo dhul banaynayo dhulka Ilaahay baa leh wana dhulkii maqdaska ah weeyaan waxaan u baahanahay inay isgaarsiisaan aqalad maqlaysaan maamulku waa maqlaysaane in awood saartaan dhul inta Madiina leeg masaajid leeyahay in loo baneeyo